بسم الله أنا وعد مفتاح قاسم علي waxaan dhamaanteen isla ognahay allana kitaabkiisa ku cadeeyay in ay gudaheena ku keedsan yihiin awoodo iyo kartiyo inaga badan inta aynu inaga aragno sidaas la mid ah dhalashadeena ilaa iyo geerideena waxa u dhaxeeya maalmo farxad murugo jacayl nacayb xanuun intaba isku jira waxaana intaas ay noo cadeynaysaa in noloshu ay laga maarmaan iyo waajib u tahay in qofku isbedel uu sameeyo da'da doonto jir heerka doonto ku jir xilliga doonto dareen in aad isbedel u baahan tahay balse waxa muhiimka ah in inagu in isweydiino ay qasabka tahay ayaa waxay tahay isbedelkan u baahanna waa mid noocay ah isbedelkan u baahanna waa mid qasbi kara in aynu inagu noqono dad wajihi kara caqabadaha iska dhicin kara duruufaha iyo xaaladaha adag ee inaga dhigay dad seexanaya ee aan qaadano riyooyinka iyo ujeedooyinka inaga dhigay dad adag oo noloshooda wax ka soo saaran kara waxa muhiim ah dhamaanteen in isla ognahay waxa jiro oraahyo iyo erayo aynu qalbiyadeena ku duminay rajooyinka ay lahaayeen isbedelka aynu sameyn lahayn inoo diiday kuwaas oo ahaa hadii dhaqaale lamaane iyo wax la mid aan heli lahaa waxa igu dhacay isbedel ama hadii aan dhameyn lahaa jaamacad iskuul iyo college waxaan heli lahaa isbedel balse mid aan ku sheego dhamaantood waa erayo aad adigu maskaxdaada ku qufushay si aad isbedelka aad sameyn lahayd ay xayndaabkaaga noqdaan iska saar erayadaas xumaanta iyo rajo la'aanta iyo quusta ku muujinaya qaado erayada ku sameynaya rajada ee ah in aad wajahdo caqabadaha in aad qorsheyso noloshaada in aad iska tirto caadooyinka xunxun aad qaadato caadooyinka waxtar kale ee noloshaada wax soo gelin kara mid kale ee qasbaysa in noloshaada isbedel sax ay ku soo korodho aan macna sax qofka u yeelato waxa kamid ah in ogaato wax qiimaha ku leh qarniyo ka hor waxa qiimo noo lahaa sports balse qarnigan waxa qiimo noo leh waxa la yiraahdo social media hadda qiimaha inoo leh xilliyada soo socdaan way isbedeli doonaan maalin walba isbedel uu ku dhaco waxa qiimaha ku leh waxa isbedelaya shakhsiyadaadii qofka aad tahay haddii aadan maanta bedelin waxa qiimaha ku leh isbedel kuma dhici doono qofnimadaada balse meeshaad ayaa joogi doontaa marka waa inaad bedeshaa waxa qiimaha ku leh haddii social media uu qiimo ku leh waa inaad ka guurtaa cibaadada iyo qofnimada iyo waxtarka ay qiimo ku yeelataa si aad u noqoto qof wax soo saar leh waa inaad iska ilowdaa qiimeynta musalsalada filmaanta wax waqtiga dila TV-ga iyo waqti luminta iska ilow qaado bal shakhsiyada wax soo saar kale wixii soo saaray in aad qiimeyso sidaas la mid ah waa inaad dooran kartaa in aad noloshaada ka saarto inay isu dhiibto caqabadaha duruufaha iyo xaaladaha adag aadna noloshaada ku dhiirigeliso erayada dhiirigelinta leh anigu waxaan ahay qof muhiim ah noloshayda aniga ku sameyn kara isbedel walba ay u baahato aniga noqon kara halyiga haldoorka geesiga noloshiisa macnaha ku soo biirin kara sababtoo eray walba noloshaada ku soo biira waxa uu si toos u aadi doonaa maskaxdaada wax walba maskaxdaada aadana waxay isku bedeli doonaan wax ficil ahaan aad u sameeyso wax walba ficil aad u sameeysan waxay qayb ka noqon doonaan noloshaada way la socotaan rajeynaya wax walba eray aad maqasho waxay toos ugu gudbi doonaan maskaxdaada wixii maskaxdaada u gudbo waxay isu bedeli doonaan waxa ficil u sameeyso wixii ficil aad u sameeysan waxay qayb ka noqon doonaan noloshaada marka control oo ilaali wax walba noloshaada ku soo biiraya ee maskaxdaada u gudbaya haddii ay xumaan noqoto ku bedel wanaag ah anigu waxaan ahay qof qiimo leh haddii ay xumaanteen riyadaada ama ujeedkaaga ku soo biirtay noqoto adiga ma gaari kartid yoolkaaga waa inaad dhihi kartaa yes I can waa gaari karaa ujeedkayga si guud fariintayda iyo oraahdayda waxay tahay muuqaalkan aan ugu gol leeyahay isbedel waa muhiim noloshaada sida saacadu ay u wareegto xaaladuhu ay isu bedelaan duruufuhu ay u wareegaan maalinba duruuf isku ka dhiibto ay laga maarmaan u tahay in noloshaada isbedel ku soo biirto waa inaad ka saartaa maskaxdaada hab fikirka xun aad u soo wareejisaa fikir wanaagsan waa inaad iska saartaa waxyaabaha ku muhiimsan wixii xun aad doorataa wax ku muhiim ah oo qiimo ku yeeli kara waa inaad nafsadaada ku dhihi kartaa oraahyo iyo erayo qiimo ku yeeli kara adiga qofnimadaada iyo dadnimadaada ugu dambeyn wixii aan soo sheegnay oo ahaa in aad number 1 maskaxdaada fikirkeeda hagaajisaa oraahyada aad isticmaalayso ay qiimo ku yeeshaan iyo waxa muhiimka aad kala doorataa waa inaad ku biirin kartaa ficil joogtayn oo noloshaada macna sax u keenaysa ugu dambeyn dhakhtarku bukaanka ma daweeyo isagoo aan ogaanin cudurka haya sidaas la mid ah adiguna ma ogaan kartid isbedel lama sameyn kartid adigoo aan ogaanin qiimaha qofnimo ma sanidin